dhammaantiin waan salaamayaa salaan kadib maanta waa maalin kale oo runtii guul u ah shacabka Soomaaliyeed waa maalin ku astaysan talaabo wanaagsan oo hore ugu dhaqaaqnay dhinaca adeegga bulshada iyo shacabka runtii Soomaaliyeed tabaalaysan halkan waxaan ku soo booqanay hawlwadeennada oo runtii shaqo adag ku jira hadda ka hor October ayagoo la tacaalaya jariimadii ka dhacday aad ogtihiin Zobe iyo shacabkii masaakiinta ah ee wax ku yeeloobay xilligaas ayay waxay ka shaqeynayeen habeen iyo maalin u taagnaayeen inay badbaadiyaan nafaf badan oo Soomaaliyeed oo ilaahay uu ku badbaadiyay gacmahooda laakiin markaan halkan ugu nimid duruuf aad u adag ayaa haysay oo ay nala wadaageen annaguna indhaha aan ku soo aragnay duruufaha aad garanaysaan ayaa waxa yaalay marka la fiiriyo emergency-ga 3 sariirood oo waliba muddo dheer la isticmaalayay oo kaliya ICU-da ayaan aad iyo aad u koobnayd waxa aan markaas isla aragnay oo u aragnay inay laga maarmaan tahay inaan u dhaqaaqno sidii aan wax uga qaban lahayn marka xilligaas laga bilaabo hawlgalkii iyo dadaalkii la bilaabay maanta ayuu mira dhalay waa guul aad u weyn maanta waxaan joognaa inaan haddii la yiraahdo u dhagax dhigayno in halkaan laga dhiso xarun weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo qalabkeedii wadata haddii shalay ay ahayd 3 sariirood oo muddo dheer la isticmaalayay waxaan rajaynaynaa ilaa 47 sariirood oo haddii la yiraahdo cusub in ay inagu soo kordhi doonaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa haddii ICU-da ay ilaa iyo in ka badan 30 waxaan ku jiraa ay fursad duruuf adag ay jirtay hadda inaan noqono wadamada ugu horeeya ugu wanaagsan inaan ka mid noqono ayaan ku talagalnay waana ka mid noqonaynaa haddii la yiraahdo intaasoo dhan waxa sii macaanaynaya waxa weeye runtii wax lagu farxa ah dhismahaas iyo qalabkaas intaba waxay ka timid waa hanti shacabka Soomaaliyeed ka timid waa hanti dawladda Soomaaliyeed ka timid waa waxaan annaga leenahay ma aha wax cid inaga kaalmaysay maaha wax tuugsi iyo gacmo hoorsi ku yimid maaha waa wax ku yimid shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed oo isu tagay oo iskaalmaystay ay ku dhisanayaan runtii waxaan u mahadcelinayaa in alla intii ka qayb qaadatay ku dadaashay go'aankaas qaadatay maanta ina soo gaarsiisay heerkan aan taaganahay ayaan uga mahadcelinaynaa bacdallaah waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda ICRC oo isbitaalkan muddo aad u dheer gacanta ku soo haysay oo dadaal aad u badan ku bixisay waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin wali waa la idin baahan yahay waxaan rajaynaynaa inaad haddii shacabka Soomaaliyeed aad ku sinteen inuu wax qabsado waxaan rajaynaynaa inaad sii wadaan sii laba laabtaan ilaa annaguna aan sii laba laabno waa isa soo daba soconaynaa marka waxaan rajaynaynaa intaan annagu dadaalay in la eg inaad nala dadaashaan oo aan isbitaalkan iyo kuwa kaleba aan ka wada shaqeyno sidii shacabka Soomaaliyeed adeegaas ay u heli lahaayeen waan ugu bishaaraynayaa shacabka Soomaaliyeed haddii shalay waxbarashadii aan wax ka qabanay oo 3,000 oo macallin aan hawlgelinay maantana meeshaan joogno waxa waaye waa daryeelkii bulshada iyo caafimaadkii marka adeegii bulshada ayay dawladdu ayay bilowday kan kaliya ma aha martiini baa soo socda insha Allah asagana oo haddii la yiraahdo asagana xarumo noocan oo kala ayaa laga sameyn doonaa marka way sii socotaa bangiga dhiigga hadda la furi doonaa insha Allah taala oo aan rajaynayo inaan balorta dhiiggayga shacabka Soomaaliyeed anigu inaan ugu tabarruco qofka ugu horeeya inaan noqdo oo insha Allah u shuba marka waynu guuleysanaynaa meel fog baan ka nimid laakiin maanta waxaan taaganahay meel wanaagsan oo rajo iyo hididiilo leh oo aad u wanaagsan aan taaganahay marka dhammaan intii ka soo qayb qaadatay oo wasiirka iyo agaasimaha hay'adda iyo agaasimaha isbitaalka taliyaha booliiska iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo hantidoodii ay tahay mid ku baxayso iyo dawladda Soomaaliyeed waad mahadsantihiin kulligiin قول بأنا يرجعني أدب ما سنتين السلام عليكم.